horta aabbaha maxay u dil rabtaa adiga laba farood buu ii taagay caalamiskaas ku tagtay Puntland ku tagtay يعني waxaa maray balduuna maray kala kaca maray garowa maray soo ku tagay eedeysanaha xanaaq uu ka xanaaqsan yahay aabihii ay ugu biir kooxda Abdixsaal shaab qorin uu la goostay waxba kama jiraan hal meel kama bilow eedeysana indhow dhacdo muruga leh ayuu horay u wataa taasoo ka turjumaysa sida fikirka qaldan iyo marina habaabintu u burburin karaan xitaa xiriirkan ugu qaalisan kan aabbaha iyo wiilkiisa sharwadihii shirqoolka dilka u maleegay aabihii dhinaca kale waxaa inala jira daktarkii tramadolka qawaariijta duri jiray ee taleefankiisa loogu tagay 28 lambar oo ku kaysan hal eray 23 lambar oo ku kaysan hay 10 lambar oo ku kaysan obi maxamed cumar cabdi xaashi دكتوركا 2014 ayuu ku biiray nabadiidka waana isagoo wax ka baranaya macadka alqiima ee Bulafulay gobolka Bay ku yaala muddo 5 sano ah xilliga waxbarashadeedkiisa ayaa loogu kordhiyay 2 sano oo tababar caafimaad ah kaasoo uu ku qaatay hospitaalka argagixisada ee Bulafulay hogaankana uu hayay horjooge Dr. Cabdiraxmaan kadib tababarkii ciidanka jabhadda ayuu ku maray muddo 3 bilood isagoo bartay sida loo isticmaalo hubka sida AK47 BKM RPG waxaana amiir u ahaa Ismaaciil Dubad $30 oo mushaar ah oo loo bilaabay intii uu ardayga ahaa ayaa markii dambe isu bedeshay $80 sababtuna waa inuu dhakhtar yahay 2023 ayuu xaadiray buuraha Calmiskaad si uu uga qayb qaato dagaaladii deegaanadaasi ka dhacay isagoona ahaa dhakhtarka daaweeya xubnaha qawaariijta ee ku soo dhaawacmay dagaalka muddo 8 bilood ah tramadolkana dura waxa uu yimid Muqdisho iyadoo qorshaha uu yahay in la hormariyo xirfadiisa caafimaad waxaana uu ku soo degay guriga adeerkiis Cumar Cismaan Xaashi oo geeriyooday kadib imaanshiyaha eedeysanaha doctorka ayaa Muqdisho ka bilaabay macalinimo habeenkii ah si uu isu qariyo isagoo dhanka kale wax u baranaya qawaariijta si mar kale uu ugu adeego xirfad sare eedeysana maxamed cumar cabdi xaashi doctorka ayaa taleefankiisa loogu tagay 28 lambar ku kaysan hal eray bara 23 lambar oo ku kaysan hay 10 lambar oo ku kaysan obi habkan ayaana ah shaxda caadiyan ay isticmaalaan xubnaha amniyaadka si ay u qariyaan heybta horjoogayaasha iyo xubnaha ay xiriirka la leeyihiin aniga al-shabaab anoo yaray wataan waxay geeyeen goob waxbarasho kadib markii waxbarashadii geeyeen waxay geeyeen meel caafimaad ku baranayay kadib muddo dheer kadib waxa la qaaday buraha goolis markii aan aqliyeystay oo aan gartay dhibaatada meesha ka jirto iyo in waqti badan iga lumaayo waa isaga soo dhuntay anoo hadda iska joogo magaalada Muqdisho oo xaafadeeda joogo ay la soo qabtay adinta ku dhalatay walweyn meeshii ka wateen intee waa markii baadiyaha walweyn markaas intee ku geeyeen waxay geeyeen Bulfulay meesha wax ku baratay markii Bulfulay macad ku dhibay macad caadi diintii wax islu baranayo kadib waxa la geeyay goob caafimaad oo 2 sano ah markaa dhameystay waxa la bedelay gobolka Bari intee ku taala goobta caafimaad ku baratay magaalada Fulay ku taala magaalada ku taala adiga ku geeyeen miya ayaga geeyna ma iyaga iska lahay meesha dhanba goob caafimaad ay leeyihiin waa meeqa markaas uga baxdeen meesha meeqa qof wax ka baranaysa adiga kulli dadka dad 300 ama lahayn laakiin aniga 3 qof anagu xaqna loo bedelay macadkiin 3 qof laga qaaday miya caafimaad 3 qof loo qaatay kadib goob caafimaad la geeyo oo lagu baranayo marka meel isbitaal la geeyay 2 sano marka isbitaalka practice iyo 10 lagu siinaa kadib waxa la qaaday aniga gobolka Bari waxa la geeyay buuraha Calmadow markii la geeyay kadibna Calmaskaad la soo gudbiyay marka Calmaskaad anoo 3 bilood joogo ag soo tagay Calmaskaad ku tagtay Puntland ku tagtay hadii aad Bulafulay ku baratay caafimaadka صح ruudkee martay يعني waxa maray balduuna maray kala kaca maray garowa maray soo ku tagay inta ay wadaan qof ku dhibay miya macna qof u dhibay kadib meesha tagtay marka waxa dhacay dagaal Daesh oo u dhaxeeyo shabaabkii Daesh u dhaxeeya goorma ka soo tagtay waxa ka soo tagay 2023 bishii 7 oo qeysa inaad dagaalada hadda markii dhacayeen oo Puntland dagaalada waa joogtay macnaheedu bilawsan joogo dagaalku wada joogo markaas oo kale oo maamulka la diriraayo ma shabaabkii iyo Daeshka isku safa ayaga isku dhaxsanaayo ayaga is diriraayo meesha marka tagtay oo holgasho markay meel aadan aqoonin oo dadkooda aqoonina tagtay Soomaa ma waa aniga waxa qabilsana bis ina dadka dhaawac durbisa qabilsana dadka dhaawac aan arbadaxan oo biyaha durbisa la geeyay meeqa ku joogtaan markaas oo kala dhaqaatiirta adiga waa badanayo 30 qof ma lahayn waa badan Daeshka iyo marka isku dhaceen shabaabka see wax u dhaceen shaqada ka qabateen maxaa kamid ah aniga kulay shaqada ka qabto waxa kamid ah in qofkii dhaawaca laga soo gudbiyay meesha dagaalka in xanuun baabiya duro aad duubo kadib santarka dambe caafimaadka u gudbiyo nooca dureys maxaa dureys arbada si tramdol kala ugu weyn tramdol kala duraysa deglifin oo kala dur kartaa deglifin inkastoo loo garan marka dhaawac qofka uu yahay la dur karin laakiin markaas wixii xanuun baabiyaasha badan haystid aad duraysa
ترام دولك waxaa ku dhifanaysaa اه xamar markaa timid yaa ku soo degto u sheegtay dawladdu waxa uu sheegaysa inaad timid dowladina u sheeg warab laakiin anoo nafteedu baqaayo oo cabsanayo maadaama aan ogeyn systemka meesha yaalo iyo qaabka in hadan dhibaato kale aan sii kulmaayo ka baqaayo marka qof dhibaato ma geysan waa iska jooga xaafadda iska jooga aqoon kororsi oo baadaama xirfadaadii inaad kororsato aqoon ma aadi ma gashay xirfadiina kororsado waa aaday sababtoo ah xagga shahaado laga siin shahaadina raadsado aniga hore u shaqeysto mustaqbalkayga aan hore u sii istarajinayo maxaa bilowday neersan bilowday ka bilowday iskuul xaafadda ku yaal takhasuska ina aad dirta keewaa نياد تقص أو سببتان جعلت كم صوب بحن تقص ويمر ولكن محارب نشاد دبل مسك قط هدو فالمشي كلاس كفرت معنا عاشق استسكي وين مركا واحد سميه هو بيجا إلا أنت دنعاء والله جبتها كبيس ما واحد تولي حاجة وحقوق بدلوا قبل نسمعها وحقوق نابرت وحوا تراجع أنا سيدا قف تراجع له قليل وحقوق صبر انتصر بس sargaalkii soo qabtay hogaamiyana howlgalkii qarsoodiga ayay maxkamaddu dhageysatay kiiskiisa wuxuu naga soo gaaray oo xogtiisa xorriyaankiisa la socday hoggaanka sirdoonka hay'adda ila weerarada soo gudbiyay inuu ka tirsan yahay ururka shabaab xogtiisa oo dhameystiran isku jirto location-ka iyo goobta uu ka shaqeeyo alla soo diray xogtiya ku howlgalay location-ka guriga meesha iskool uu ka shaqeynaa ku tagay iskoolkii markaan tagay waa ka waayay oo ku maqnay maamulkii ardaydii ku howlgalaa weydiiyey inuusan joogin la sheegay markii dambe waxa ogaaday guri iskoolka aan ka fogeyn inuu joogo guriga ugu tagay waa soo waday sawirkiisa si aan ku aqoonsaday xafiiskiga keenay waa wareystay report iyo raaca marsiiyay waa wareystay wuxuu ii sheegay inuu nimankan ka tirsanaay ayaga ay wax soo bareen ilaa yaraantiisii dugsi ay sheegeen waxbarasho madraso oo ku soo qaatay buulo fulay intaas gadaasheed in loo soo bandhigay kabacdi dana la yiri waqtiga lagu geliyo waxa lagu baray ku soo dhawaaw ururka markii ururku lagu soo dhaweeyay waa tababar u galay inta ka gadaal wuxuu igu daray inuu markii tababarku soo dhamaaday safar dhulka la marsiiyay ilaa Hiiraan ilaa Galgaduud oo calmadow tagay calmadow ka soo dagaalamay sidoo kale wuxuu ahaa tiktor oo qaabilsan gargaarka degdega ah xaggaas wuxuu joogay 2018 ilaa 24 xamar imaado dhahay isma soo dhiibin hay'adaha amniga isma soo dhiibin howshiisa iska wata asoo sidaas dhoo Malaysia ka xogtiisa la soo diray xogtaasaan ku soo qabtay intaas oo report aan ka diyaariyay waxa waaye u gudbiyaa la dhahay sheeg hoggaanka baarista siyaasi xabsi ku keenay wixii kale iska dambeeyay baarista ku shaqo lahayd iyo kiiskiisa muddo dhowr bilood oo socday xogtiisa iyadoo diyaarsan oo sirdoonka waqti iyo qarash ay ku bixiyaan alaykan aniga oo sawirkiisa iyo location-ka meesha jooga shaqo sawirkiisa iyo location-ka iyo xogtiisa dhameystiran meesha ka shaqeeyaa eedeysane cabdiraxiin xasan indhoy kulmiye waxaa lagu ogaa inuu ahaa askari xoogga dalka ka tirsan diintiisa dadkiisa iyo dalkiisana difaaca u ahaa balse 2017 ayuu wejiga bedeshay waxaana uu la soo baxay fays kale antidii qaranka AK47 waa qaatay isagoo u goostay safka qawaariijta kadib tashkiilinta dhagarqabe lagu magacaabo macalin xanafi jilib jubada dhexe ayaa looga bilaabay tababar halkaas oo lagaga sii gudbiyay jabhad ka dagaalanta gudaha dalka Kenya uu kaga qayb qaatay dagaal halkaasi ka dhacay baxsashadiisa qof walba waa quustay laakiin rajadii ugu dambeysay waxa ay ku hartay qalbiga aabihiisa Daxli Xasan Indhoy askari naftii hore ah oo difaaca dalkiisa waxa loo sheegay in wiilkiisa laga doonayo qorigii uu kala goostay ciidanka balse qalbiga aabaha ma ahayn mid hub ka murugoonaya waxa uu ku maqnaa dareemihiisa wiilkiisii ka leexday jidkii saxda ahaa iyadoo ay jirto walwal iyo jacayl aabanimo ayuu aabuhu aqbalay inuu la kulmo wiilkiisa weliba banaanka buulo burde isagoo filayay inuu dib ugu soo celin karo dariiqii toosnaa laakiin waxa uu la kulmay ma ahayn wiilkii uu soo koriyey qof qalbigiisa ay ka buuxaan khiyaano iyo qorshe madow ayna ku saaqday sunta cadownimada qawaariijta ee aan kala sooca lahayn eedeysanuhu isna halkii uu ka muujin lahaa toobad iyo qoomamo dhagaysan lahaana warka aabihii ayuu diyaarsaday shirqool uu ku waxyeelanayo kii dhalay ninkii naftiisa u huray rijaalkii koriyey ninkii mar walba uu ahaa gabaad iyo garab aabba Indhoy dagaal saacad socday isdifaacna ahaa ayuu ku galay goobta uu ku bulamiyey wiilkiisa uuna ugu diyaariyay dhagarqabayaal aabihiis nafta dhaafiya allase ayaa beeniyey dhagartaasi aabba Indhoyna waa iska caabiyey dhagarqabayaashii eedeysane cabdiraxiin hadda marka la soo qabanayana sahan basaasnimo ayuu ka waday xerooyinka ciidan ee degmada buulo burde ku yaal markaaga horena ciidanka xoog adoo ka tirsanaa qore la goosata asaas shabaab la aadi taasaa lagu haystaa eedaas ma gashay mise ma gelin dooda ka qabtaa dood sharciyaa ka qaba doodaada caddeed mudana gudoomiye horta aniga ma ahayn askari dowladeed ma ahayn markaan baxay macawisleeya markii hore ahaa jiray waana ka fadhiistay markaan baxay
anoo fadhiyo oo maamul aan u shaqaynaynin ayaa waxaa isku dhacnay dad ehelkayga ah kadib sidaasaa nin oon diris nahay oo qaraabo korona aan nahay ayaa qoray ka qaatay oo asna macawisley ah oo qoray qabiil ah ninkaas ayaa qoray ka qaatay kabacdi dadkii isdagaalsanayna baa israaraasanay waan heshiino waalid baana kala dhex galay iyo qabiil kadib aniga waxaa go'aansaday inaan dalka iskaga tago meelaha ay dibadaha iska aado maadaama ay igu xumaatay meeshii joogisteeda kadib waxaa la soo xiriiray nin oo isku deegaan aan nahay oo aan ka rabay inuu dhulkaas uu iga siiyo meelaha maro iyo waddo micnaha qaab tahriib iyo waxaas nidaamkaas inaan weydiiyo kabacdi wuxuu talo igala qaatay inaana bixin oo aan helayo meelaan ku noolaado iyo wixii aan dibad ka raadi lahay oo dhaqaale ah qaab noocaas uu igu tashkiiliyey qaab noocaasaa shabaab ku galay kadib way wadeen ballana iga qaadeen amnigaadana anagaa sugayno wax alla waxaa rabto dhaqaalaan anagaa ku siinin oo dibad ka raadi lahayd saas ayaan ku ballannay ballantii ayaan ku raacay markii ay geeyeen mucaskar oo aan ka baxay kadib waxay igu dareen jabhadaha Kenya igu dareen markii koobaad ay igu dareen waxa ay hay'ee de hadda way askari baa ahay shalay shacab baa ahay ballantii aan ku ballannay baan rabaa waa leegu booday markii leegu boodana go'aan waxa ku qaatay anigana inaan de meesha waxba ballan ay jirin inaan iskaga baxaan go'aansaday meelaha ka baxaan oo raadinayeen way fahmeen oo way qabteen way xireen waxay dhaheen kabacdi dawladda ku soo dirsatay muddo 7 sano ayaa u xirnay ay dhibaataynayeen jirdil mid muuqdo iyo mid qarsan intaba uu ugu yaalaa 7 sano ayay dhibaataynayeen ilmahayga ayay agoonteeyeen tan labaad inta xirnay ehelkii hooyaday iyo walaalahay ayay u imaadeen haddana liif garaaceen wixii xoolo deegaanka ama xaafadda joogay way ka haysteen intaasoo dhibaato ayay ii geysteen mar haddana markay soo deynayeen hadda waqtiga ay xirteen 7 sano ayagoo ay haystay hadda markay soo deynayeen haddana damaanad bay igu soo deeyeen waxay yiraahdeen 24 saac dhaxteena laguma arki karo oo saxiix ah ayay iga qaadeen anigoo saxiixa iyo nabadoonkayga kabacdina go'aan waxaan ku qaatay inaan dalkayga iyo dadkayga iyo dawladayda aan raadsado halkaas cararkii aan ka soo qaadayna waxaan imaaday dadkayga iyo dalkayga iyo dawladayda halkay ku nooleed markaan imaaday xaafadii anoo ku nasanayna waxa ay imaaday ciidamada dawladda kabacdina laanta amniga ay igu soo wareejiyeen sidaan baa halkaa ku imaaday arrinteedu waa nooca marka qofka oo qaraabada nimada aad marka hore sii martay oo kugu tashkiiliyey muxuu ahaa ninkaasiga shabaab ka tirsanaa laakiin isku deegaan ahayno horba isku kasi jirnay macallin Xanafi baa liiraa intee tababar ka gashay marka kugu qanciyey tababarka ka gashay waxaa ka galay jubooyinka dhinacee qaasatan jilib iyo bu'aala meel u dhaxayso marka koox badan ahayn tababarka markaas 100 askari ahayn tababar jabhadnimo caadi u ahaa jabhad waa ha ballantu maxay ahayd ballantu waxay ahayd markaas aan reer laba ahay danta dibad u aaday ay marka hore iga ballan qaadeen oo dhaqaalaha ku siinaynaay dheen kugu filno reeraada aad ku biilato markii runtii loo tagayna waxaan reerayga aan ku biisho igu filnaado in la siiyay iska badhaafay markii aan ka hadlaybo waxa la yiri meeshaan dhaqaalo u maadan imaanin nidaam kala u imaatay wax dhaqaale ay kama hadli kartid waa la afduubaybo markii horena ballan laga qaaday dhaqaalo kugu filnaa lagu siinaa lagu yiri lagu waday markii hore meeqa xaasal lahayd adiga laba xaas markii aan baxayaan lahay hal xaasna dhaxdooda ku guursaday saddex xaas marka biilka ku biil lahayd ka rabtiga aan ka rabay waana ku ballanay inay siinayaan waana iiga baxeen marka lacag cadad ma lagu sheegay cadad cadad la sheegay ilaa adi 600 700 waa lagu siinaa leedahay hadii oo waxa waa amnigaadana waa la kafaal qaadaa laba reer hadii de ani waxa yiraahdeen nin xamuul jiida ay waalid iga dambeeyo ilma iga dambeeyo shaqadiina de way halawday dibada iskaga socdaa ay dhaaf baa ninkaas ku yiri qaraabaan ahayne nidaamkoodana ani ma ka saynin asaa igu yiri marka waxa waxa u baahanta oo lagu siinaa amnina waa helaysaa aawin xaaskiisa xaaskii inta xirnay baa lagu kala baxay sidee midna ayaga fasaqay oo maxkamadooda bay ka fasaqeen labana deegaankay joogeen ayagana waa sidaas oo kaleeto waa la guursaday qaab lagu guursaday ilaa hadda garan maayo laakiin in la guursaday oo ilmo dhaleen baa la sheegay islaamahaaga biilki markay oo sugayso meeqay kaaga dhigeen ku siiyeen biilkii $100 siiyeen oo aan ka dooday waliba markii dambana waa iga jarteen markaa dood bilaabay markii biilkii isku maan dhaafteen hadda u kala guurto ballantii aan ballanaa horta isku maan dhaafnay ballantii hadda iiga baxeen de aniga awalba waa ballanay ballantii baa iiga baxeen aan go'aankayga qaatay hadafkayga meelaan ku baxaan raadinay wadadii ku baxaan oo raadinayna waa way qabteen qoriga qaatay muxuu ahaa qoriga qaatay qori qabiilo ahay nin deegaan oo dirisna iska lahay waana leeyo gudo isla markii baa leeyo guday isla waalidkay baa igu gudaanay xitaa qayb ka bixiyay adiga hadda soo bixisid inaad sheegtameen hebel waa soo socda dawladii waa soo socda dhahdamahay waa sheegay nabadoonkayga balad weynoo joogay meesha laga soo qabtana bulobirday aad
tag baa la yiri xaafadda waalidkaa u tag annagaa kaa daba imaanayno nidaamkii maamulkii habraac annagaa ku marinayno anigana maadaama la yiri 24 saac waddanka kuma arki karno go'aan waxaa qaatay inaad dalkayga iyo dowladayda aan isku dhiibo wax alla wixii iga qabanaya ha iga qabteeno nabadoonadeeda iyo waalidkay iyo walaalahayna ay la tagaan saasaan go'aansaday nabadoonadii iyo waalidkii iyo habraaca marinne maamulka dowladda ay imaadeen sidii baa xabsi ku soo galay nin laga warhaayo nabadoonadu ay ogaayeen baan ahaay oo ogaal meesha ku imaaday markii ku xireen intee kugu xireen shabaab waxay igu xireen awal jilib igu xireen anoo baxsaday kadib haddana waxay mariyeen saako ay geeyeen ay igu xireen haddana markii meeqa soo joogtay Kenya 4 bilood kaliya u shaqeynaa 4 bilood kaliya u shaqeynaa kuwa markaa mucaskar ka baxay way qaadeen xuduud Kenya ay geeyeen 4 bilood joog 4 biloodna dooda noo socotay intee dhinacay xuduud Kenya dhanka gada iyo gada dhexdeeda xuduud gada iyo Kenya meesha iska galayaan way abaaraan waxay u dhaxaysaa ceel waaq iyo balad xaawo meel u dhaxayso way dhaxdaasi ku aadantahay hadii deegaan ahaan la tilmaamana waxa la yiraahdaa dhabasa Kenya ama dhabasa Soomaali sidii loo yaqaan maxaa la dhabasa Kenya halkaas waa xuduudda meesha ay ka galayaan inta hadda uu sheegay waxyaabo qaar uu ka tagay oo in argixisada oo ay u dhiibatay 360 askari oo argixisada ka tirsan saadkooda in loo dhiibtay ayuu qiraalka ku sheegay waxyaalahaas hadda inta kamuusa sheegin in markii uu Kenya tagay jabhad lagu daray jabhadaasina ay soo bartay la baray meelaha uu ka dagaalami lahaa iyo lagu soo wada wareejiyo meesha dhan la soo baray si uu hadhow dagaal meeshaas uga sameeyo waxyaabo badan oo meeshan uu ku sheegay qiraalkiisa laakiin hadda inta kamuusa sheegin maxaa ka tagnay dad waa sax warka si loo sheegay waa inta qaabkaas baa u sheegay qaabkaas buuna u jiraa tan oo ciidamo mas'uul laga dhigane ma jiraan ani wax lay magacaabo xil ma jiraan alaab meel tiila baa lay dhiibay si ku simaahana leegu dhiibay xilna leema magacaabin alaabtaas un baan hayay adaa in ka mas'uul leema dhihin oo si ku meel gaaraan un baan u hayay xeed alaabta raashin oo garaam ciidan way adaa mas'uulka oo xil ahaan leegu magacaabayna ma jirin askari ba ahay wax mas'uuliyad oo aan ka qaaday ama leegu dhiibay ama garaam leegu siinayna ma jirin garaamka aan u dooday waa garaamkii markii hore leega ballan qaaday oo ballantii ayaga aan ku raacay ahaa tan stoorka lay dhiibayna ma ahayn mid oo xil leegu magacaabay waa mid si ku meel gaar ahaan ninkii shaqada iska lahay oo u maqnay aan u hayay oo lay dhiibay ma qaybay sayili wixii soo dhiib liira u baa dhiibay gaariya jooga meesha qof ma la siinaa misaxa wax la karaayo maya badar way loor soo dhiib intaasoo loor soo dhiib 5 loor soo dhiib 10 loor soo dhiib saas weeyaan oo ku wixii la karaaya oo loo qaadayo meel kale iyo loo sii qaadayo baraha galkan ugu wakiilka hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa natiijada baarista ee macluumaadka ku biiriyey maxkamadda ku-xigeenka xeeralyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Axmed Cabdallah ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaashan ay ku qaado qodobada eeday xafiiska xidhaalinta noo gudoomiyay labada eedeysane adaan kala qaado eedooda eedeysanaha koowaad oo ah Maxamed Cumar dhakhtarka waxa loo haystaa inuu ka tirsan yahay argixisada al-shabaab gaar ahaan qaybta caafimaadka argixisada sidaan ognahay ayada isqaybisay qaybna caafimaadka qaybna jabhadaha qaybna waxay dhahaan dilalka qorsheysan kuwa fuliya eedeysanahani waxaa soo tababartay oo aasaaskiisa min bilow markii uu yaraa ilaa iyo hadda ku soo tiiri tacabeelay argixisada gaar ahaan qaybta caafimaadka waxaa la soo baray machad oo sida iskuulka dugsiga sare camal ah sidoo kale machad oo haddana argixisada ah oo la barayo caafimaadka oo aan la baraynin maadooyinka kale ee jira maadada caafimaadka kaliya la barayo ay argixisada soo bareen kadib markii machadkiisa uu dhamaystayna waxay u fureen tababar jabhad ah tababarkiisa markuu dhamaystayna waxaa loo diray buurleyda calmiskaad halkaasi uga soo dagaalamay jabhad halkaas ku dhuumaaleysanaysa ay eedeysanaha ku biiray dagaallo halkaas kaga soo qayb qaatay sidoo kalena xirfadii la baray ee caafimaadkana jabhadda ayuu ugu kaalmeynayay oo wixii dhaawacmana uu daaweynayay waxaa ku filnaan weysay caafimaadkii intii uu bartay oo uu ku bartay macaadidii argixisada ee lahaayeen bacdama argixisada aysan caafimaadka experience weyn u lahayn eedeysanaha waxaa loo soo diray magaalada Muqdisho si uu u kororsado aqoontiisa caafimaadka argixisada ayaa u soo dirtay halkan isla markaana kana bixinaysay dhaqaalaha uu ku baranayo
caafimaadka oo uu ku takhasuskiisa kusii kordhisanayo eedaysanaha waxaa la geeyey iskuul lagu magacaabo New Era sanadkii uu imaaday isla markii ayuu ku biiray wuxuuna baranayay takhasus ahaan kalkaaliye caafimaad si uu argixisada ugu anfaco cilmigaas iyo waxaas uu halkaa ka barto balse waxaa ka hortagay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed oo eedeysanaha ka war heshay xogtiisa kadibna sidaas gacanta ugu soo dhigtay haddii aan gala eedeysanaha labaad oo ah Cabdiraxiin Xasan Indhooy waa eedeysane hadda ka tirsan argixisada al-shabaab balse taariikhdiisa markii laga sheekeynayo waa taariikh mugdi ah eedeysanaha wuxuu markii koowaad ka tirsanaa ciidanka deegaanka reer Hiiraan gaar ahaan degmada Buulaburde macawisleyda ayuu ka mid ahaa waxaa loo qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed eedeysanaha halkaas ayaa waxaa lagu daray ciidamo militariga ay qoranayeen eedeysanaha waxaa la siiyey qori AK-47 ah si uu ugu shaqo galo ayadoo la rabo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in si toos ah loogu qaado tababaro dibadda ah halkaasna uu mustaqbalka ka anfaco eedeysanaha wuxuu sameeyey inuu ka goostay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo ku biiray ururka al-shabaab sababta ka dambeysay inuu kooxda argixisada al-shabaab ku biiro waxay ahayd eedeysanahani waxaa dhacday in xaas uu qabay eedeysanahani uu jir dilay uu garaacay kadibna aabihii ayaa eedeysanaha xiray kana furay xaaskii uu qabay eedeysanaha isagoo ka xanaaqsan xariga la xiray iyo xaaska laga furay ayuu wuxuu ugu biiray kooxda argixisada al-shabaab intaas xogtaas waxaa noo sheegay aabihii dhalay eedeysanaha oo ah Saddexle Xooga Xasan Indhooy Kulmiye noo sheegay eedeysanaha waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Xasan Indhooy Kulmiye laakiin xogtaani waxaa sheegay Saddexle Xooga Xasan Indhooy Kulmiye noo sheegay oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu sheegay in eedeysane Cabdiraxiin marka uu al-shabaab ku biiraayo uu ka xanaaqay xaaskiisu jir dilay uu garaacay uu dhaqan waayay kadib waa xiray uu yiri marka xiray eedeysanaha waana ka furay xaaskii eedeysanaha xanaaq uu ka xanaaqsan yahay aabihii ay ugu biiray kooxda argixisada al-shabaab qorin uu la goostay dhacdaas dhacda ka sii xanuun badan dhacday eedeysanaha waxaa la xiriiray aabihiis wuxuu ku yiri aabbo qoriga lagu haystay qoriga sakeen eedeysanaha meel uu ku balamiyay meel ka tirsan afcad liiraado ayuu eedeysanaha ku balamiyay wuxuu yiri halkaas igu imaa qoriga si aan kugu wareejiyo ninka la yiraahdo Xasan Indhooy oo ah eedeysanahan aabihiis oo qabaarmoog ah oo loo diyaariyay mishin loo diyaariyay eedeysanahan uu diyaariyay ayaa waxaa dhacday in uu meeshii tagay eedeysanaha halkaas wuxuu ugu diyaariyay koox argixisada ka tirsan si uu aabihii u dilo waxaa dhacday in Ilaahay uu ka badbaadiyay Xasan Indhooy dhagartaas loo dhigay iyo mishinkaas uu eedeysanaha u dhigay uu ka badbaaday markii uu halkaas ka baxay wuxuu watay 20 askari oo watay sababtoo ah eedeysanahani wuxuu ogaa inuu argixisada u galay warbixinta jaalo waa la wada helay laakiin wuxuu isdhaayay in aabanimada ay deeqdo oo waxa laga yaabaa uu qoriga ku soo dhiibo wuu aaday si qoriga uga soo qaato laakiin Cabdiraxiin wuxuu sameeyay meeshii mishin ugu diyaariyay wuxuu noo sheegay Xasan Indhooy in ku dhawaad hal saac lagu dagaalamayo meeshaas oo ay dagaalamayeen kooxda argixisada al-shabaab oo eedeysanahan meesha uu ku soo diyaariyay iyo Xasan Indhooy 20 askari uu watay Ilaahay ka badbaadiyay meesha si uga soo badbaadin mudane gudoomiye sidaas ayuu eedeysanaha argixisada ugu biiray asagoo cara ka xanaaqsan aabiis raba inuu mishmuud dilo ayuu haddana argixisada sidaas ugu biiray eedeysanaha argixisada muxuu ka soo sameeyay argixisada waxay kala wareegtay horta qorigii tababaray u furtay kadibna waxay u dirtay Kenya dalka Kenya u dirtay dambigani wuxuu noqonaa marka dambi international oo noqonaya Soomaaliya oo ka gudbay wuxuu galay dalka Kenya oo galay xuduudo ka tilaabo mudane gudoomiye eedeysanaani dalka ayuu ka baxay wuxuu galay dalka Kenya xuduudiyo ka tilaabay wadan iska nabada iyo deegaano iska nabada oo waliba ay degan yihiin Soomaalida degtay dalka Kenya ayuu eedeysanaani wuxuu ka kicinayay dagaal wuxuu sheegay inuu qiraalkiisa wuxuu ku sheegay qiraalka uu ka hor qoray maxkamadda ciidamada 360 askari oo argixisada ah inuu halkaas ku haystay waa urur ciidana waa hadda mudane gudoomiye eedeysanahani hadda markii la soo qabanayo waxa laga qabtay degmada Buulaburde
buula burda wuxuu ka hayay eedeysanahani indheen basaasnimo bacdama eedeysanaha uu reer buula burda yahay halkaas uu argixisada ka raacay waxaa dhacday in hadda buula burda ay ku yaalaan xiriyo ciidan oo muhiim ah oo weliba howlgallada argixisada lagu ciribtiraayo muhiim u ah eedeysanahani halkaas ayay argixisada geli waayeen waxay argixisada halkaas dhibaato weyn uga taalo bacdama buula burda ay ku yaalaan xiriyo ciidan oo muhiim u ah ciribtirka argixisada al-shabaab eedeysanaha waxaa loo diray inuu halkaas soo basaaso qaraxyaa loo diyaariyey qaraxyada halkaas loo diyaariyeyna eedeysanahan uu la beegsadaa loo diyaariyey mudane guddoomiye balse mar alla markii uu soo galay reer buula burda oo dhan waa wada yaqaanan eedeysanaha fartaa lagu fiiqa sidaasaa lagu soo qabtay haddii aysan dhici lahayn in lasoo qabto ama odayaal iyo sida uu sheegayo uu meel hoosoo isgeli lahaa waxaa dhici lahayd in xeryaha ciidanka ee ciribtirka argixisada muhiimku ah in eedeysanahani uu basaaso qaraxyana la beegsado haddaba mudane guddoomiye annagoo ka faa'iidaysanayno maadaama maanta cadaaladda aan hor taagannahay waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa kow in eedeysane cabdiraxiin xasan indhooy oo ah xubin ka tirsan argixisada al-shabaab dowladda iyadoo firsad siisa qori uu la goostay oo argixisada qoriga uu geeyey aabbihii mishimay haddana sameeyey dembi international crime ah oo dalkii inuu ka baxay dal kale oo nabad iska agaray oo ka soo dagaalamay haddana dib ugu soo laabtay dalkii waa dembiye xiriir ah waa saxiixiga waa mudane guddoomiye waxa uu sameeyey eedeysanahani dib inuu dalka ugu soo laabtay haddana qaraxyo rabay inuu ka abaabulo degmadii uu ku dhashay buula burde saa darteed mudane guddoomiye waxaa maxkamad sharafta le ka codsanaya in cabdiraxiin xasan indhooy ay ku xukunto ciqaabaha ugu adag ay dhigayaan qodobadii aan ku soo eedeynay mudane guddoomiye eedeysane maxamed cumar cabdi xaashi oo magaciisu afgarashadu uu yahay dictoorka ama ah dhakhtar ka tirsan argixisada al-shabaab bacdama uu maxkamadda horteeda qiraal ka qirtay inuu ka tirsan kooxda argixisada al-shabaab isagoo jiro muddo 14 sano ah ilaa hadda uu jiro 25 sano waa 10 sano ka badan waay inta uu ku jiray dictoorka kooxda argixisada al-shabaab muddadaas dheer wuxuu ka shaqeynayay lugooyada iyo dhibaateynta ummadan Soomaaliyeed ka shaqeynayay ilaa wuxuu ka soo dagaalamay wala weyn inuu ka baxay baay iyo bakool ku soo tababartay baxay oo hadane wuxuu maray galgaduud mudug sidaas oo bari u galay buuraha calmiskaad oo ka soo dagaalamay heerka dhagarta fiir intaas ku jirto mudane guddoomiye bacdama sane dictoorka uu qirtay inuu argixisada jabhad ahaan ugu dagaalamayay dhakhtar ahaan u daaweynay dhaawacyadooda waxa maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in eedeysane maxamed cumar dictoorka ay ku xukunto ciqaabaha ugu adag ee dhigayaan qodobadii aan ku soo eedeynay maxkamadda sharafta loo maasantahay qareennada ayaa maxkamadda ka codsaday in muwakkiliintooda loo fiiriyo si fifaalaha dembiga fududeeya waxaan qareen u ahay maxamed cumar cabdi xaashi oo ah eedeysanaha maxkamadda hortaagan mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh markii horena xoog ayaa lagu qasbay oo qasab ayay ahaaday asoo yar caruur ah waxba aan garanin ayay sida kooxdaas caadadoodu ahaydba ayay dugsigii ka wateen waxay waxbarasho ugu yeeraan ayay ku qasbeen dagaal uu galay oo ka qayb qaatay oo al-shabaab iyo dawladda ay ku dagaalamayaan ma jirto hal dagaal ayuu wuxuu ka noqday dhakhtar asagana wuxuu u dhaxeeyay labada urur argagixiso oo daacish iyo al-shabaab ayuu u dhaxeeyay sida asaguba sheegay ilaa hadda maxkamadda lama horkeenin markii uu ka soo baxay al-shabaab ka bacdi wax ku saabsan oo qayb ka noqday oo la cadeeyo xafiiska xilalaaliga uu cadeeyay ama baaristu lagu soo ogaaday mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh ma jiro qodobka ugu dambeeya aada oo ah qodobka 25aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada oo ku saabsan xog ururinta iyo basaasnimada ay maleegaan kooxaha argagixisada mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh xog ururin haddii la yiraahdo iyo basaasnimo astaamo qofkii arrintaas ku shaqo leh waxyaabo badan oo arrinkaas muujina oo laga heli karaa jira lama helin maxkamadda lama horkeen sida dukumeenti wax ugu qoran yihiin gurigiisa waxyaabo laga helo basaasnimo qof uu basaasay cod uu qof u diray sawir qof uu u diray wax ku saabsan arrinka lama keenin wax dhaqaale ah oo markii al-shabaab uu ka soo baxay waa muddo ku dhow 3 sano ku dhow oo wax yar oo bilaa dhiman inta wax
oo loo soo diray ama asagu u diray ama xog uu diray ama loo soo diray ururka argagixisada ay u soo direen ama asagu u diray la wadaagay maxkamadda lama horkeenin wax uu dhibaateeyay ilaa intaas uu joogay oo hadda maxkamadda loo soo bandhigay ma jiraan wadana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedda waxa ugu dambeeya qiraalka eedaysana wuxuu sheegay al-shabaab inuu ka tirsanaa jiray laakiin uu ka tooba keenay in uu isaga cararay mar hore toobadana waa furantaho ilaahay wuxuu yiri watuubu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna la'allakum tuflixuun ilaahay wuxuu ummadiisa ugu yeeray in ummaddu ay ka tooba keenaan dibbi kasta ay ku jiraan asagana fursadaas ayuu ka faa'iideystay maadaama markii hore uu yaraay meel uu ku baxsado uu la'ay aqligiisa uusan gaarsiisnayn meel uu ku baxsado markuu hero aqliyeystana uu isaga cararay wuuna ka tooba keenay arrinkaas ayadda waxaa ku jirta la'allakum tuflixuun ilaa u daba dhigo ka tarjumayso marka ayadda inkastoo ku saabsaneed عن النظر الممنوع في ردي الحرمي أدانا وحي قليسا ومما وقع عن الإنسان وح الله وحي بالآدم ككرع عضن إن إلهي وحي أمدي سويري إني كتوبة كيني كران مرك وح أو ساعد داس توبة كيني ساعد داسنا توبة كان ليه كرام مجران صادر تيدا حلقي إلهي فرصة أسيو كعرري وحوقو آن صدا إنه سنكسي مد أهانين لبعتين تشعب كيس لبعتين أيوم مركو عقلي شيء فرصتنا وهلي سداس أيون أوغا توبة كيني توبة كين كان waxay ka mamnuucaysaa dembigii uu ka tooba keenay in lagu ciqaabo adduunka iyo aakhirada lagu ciqaabo saadarteeda uu ka faa'iideystay uuna ka tooba keenay toobakeekiisa waxa la rabaa qofka hadduu tooba keenay toobadiisu tooba wanaagsan oo toosan inay tahay mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh toobakeekiisu wuu wanaagsan yahay wuxuu ku wanaagsan yahay ilaahay wuxuu yiri tuubu ila allahi tawbatan nasuuhan toobadiisu nasuuxa waayo markii al-shabaab uu ka soo baxay muddo 3 sano ku dhow wax xiriir ah oo la sameeyay ma jirto oo haba yaraatee oo xaggeeda u aaday mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh ma jirto intaas oo sano ayuu magaalada joogay waxa uu dhibaateeyay qowl iyo ficilba ma jirto uu ka tooba keenay fikir ahaana uu ka tanazulaba mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh maadaama mar hore uu ka baxay ururka al-shabaab oo 2 sano iyo 9 biloodba uu banaanka ka joogo maadaama wax huba markii hore aan lagu soo qabanin wax asaga lagu arko dhibaataha oo aan la jirin maadaama uusan fahamsanin markii al-shabaab uu ka soo baxay in ay waajib tahay in la xiriiro hay'adaha amniga sida habraacyada loo marsiyo oo san fahamsanin maadaama aan la cadeynin fal argagixiso qayb ka noqday markii al-shabaab uu ka soo baxay ka bacdi maadaama dagaal uu ka qayb galay aysan jirin oo dawladda uu dhan ka ahay oo ay jirtay kaliya waxa uu dhakhtar u noqday labada urur argagixiso al-shabaab iyo daacish oo isdagaalayo dhaawacyadii uu qayb ka daaweynayo wax dawladda ah oo san la dagaalamay maadaama hooyadiis yaraantiis markii wateen dhimarka dhanba uu ka tagay markii ay maqashay al-shabaab uu ka soo baxay oo si nabad uga soo baxay ay maqashayna dhimarka u soo laabtay ehladeedu in la wadaageen mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaa in eedda xafiiska xil ilaalinta maxkamaddu ay diido in toobadiisa loo tixgeliyo maadaama toobadiisu ay wanaagsaneed si waafaqsan qodobka 3aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada in maxkamaddu dib ay ku waayso si waafaqsan qodobka 122 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed in maxkamaddu aragto qof bulshada la mid ah aan dhib ku ahayn xataa aan u baahnayn dhaqan celin aan u baahnayn idaa badala shay u badala ma fi dhimni markii hore waxa looga cabsanaa in khatar ka imaan karto khatar oo in dhaqan celin la geeyo ah ma qabo maadaama ku dhawaad 3 sano uu joogo wax dhib ah hadalna aan lagu arag in maxkamaddu xorriyadiisa u celiso maxkamaddu way mahadsantahay mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh magacaygu waa Abkaat Cabdiqaadir Barre waxaan qareen u ahay sanaha maxkamadda hortaagan Cabdiraxiin Xasan Indhooy Kulmiye si waafaqsan qodobada 15 16 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed dhacdada loo haysto wakiilkeena aan qareen ku ahay gudoomiye ninka dhacdadan way jirtaa in uu ka tirsanaan jiray uu kooxda al-shabaab asagana maxkamadda ka hor sheegay inuu kaga biiray buulo burdimeel u dhow 3 bilood markii uu la joogay dabcan wixii uu ka rabay inuu ka waayay oo ahayd wixii u ballan qaadeen asaga maxkamadda ka hor sheegay wuxuu u sheegay inuu jeclaaday inuu isaga tago oo deegaanadiisa gadaal ugu laabto basaas baa tahay ayay ku dhaheen wayna xireen 7 sano ayuu u xirnaa eedeysanaha ururkaas xarigaas uu xirnaa 7 sano waxay sababtay in eheladiisii ay
duug u dhigeen oo macnaheedu yahay inuu dhintay uusan noolayn 7 sano oo dhib iyo rafaad ah ka dambo way soo fasaxeen in damiin lagu soo daayay oo nabadoon uu soo damiintay oo saas ay ku soo fasaxeen oo dheen 24 saac deegaanadeen uga bax maxkamadda waa laga hor sheegay markii uu imaaday Buulaburda deegaanka u dhawaa oo nabadoonadii ula hadlay oo leeyahay anaga ku imaanaynay waa soo dhibaysa magaalada soo galaysaa leeyahay ciidankii loo soo diray ayaa Buulaburda ku xiray sidaas ayaana loogu soo wareejiyay magaalada Muqdisho marka fikirka ujeedka uu soo socday waxa halkaas ugu yimid waxay ahayd inuu ka tanaasulay afkaartii fikirka awal uu nimankaas uu kaga tirsanaa maadaama ay dhibaateeyeen 7 sano u xirnaa inuu deegaankiisa soo aado dadkiisa ula noolaado ayuu u imaaday deegaankiisa ka dambana dawladda uu soo aaday ayaa xabsiga hadda uu ku jiro ugu bedeshay oo ku xanuujinayso qoriga xafiiska xeeraalinta ku soo celiyay baaraha iyo waxaad moodaa inay iska warqabin xeeraalinta baaraha waxay baariseeda ku sheegtay inuu ka tirsanaa macawisley halka xeeraaliha uu ku soo celinayay inuu ka tirsanaa ciidanka xoog hadduu ciidan ka tirsanaa nambarka ciidan uu lahaa wuu sheegi lahaa macawisley buu ka tirsanaa ninkan markiisa hore qoriga uu xafiiska xeeraalinta uu leeyahay ciidan buu kala goostay ma jirto qori uu ciidan kala goostay qoriga waxa iska lahaa qori qabaa'il ay leeyihiin buu ahaa deegaanadaas uu macawisley uu kaga tirsanaa inuu ku ilaaliyo ayayna ahayd qoriga asaga ahaa dib baa loo guday aabihii baa magay oo dadka iska lahaa baa loo celiyay sidaas marka meesha waxa ka baxay qodobka 186 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo tilmaamayo hanti luusasho dhacdada mudan gudoomiye aabihii ay ku eedeynayaan inuu dilo u rabay totally dooda tilmaamayso aabihii uu dili rabay waxba kama jiraan hal meel kama bilowin marka wax cadaawad oo asaga aabihii kala dhaxaysay ma jirin qori uu gatay ama uu si kala gacantiisa uga baxayna kama mageen marka aabihii iyo eedeysanaha wax colaad ah iyo wax dhibaato ah oo ka dhaxeey ma jiraan nimanka lagu eedeynahay mudan gudoomiye asaga ayaa dhibana u ah maanta 7 sano xirnaa caruurtiis warka muuna haynin xaasaskiisii ma joogaan marka ciqaab iyo culays iyo rafaad iyo dhibaato waxa ugu filan inta uu hore u soo maray iyo midda hadda wali marahayo miraheeda uu guranayo waxaan gabagabada iyo waxaan ka tagay codsiisiinaa qaranka saaxiibkii maxkamadda sharafta anoo ku dheeraanayn waxaan ka codsanayaa 3 shay in sifaalaha dambiga fududeeyo loo fiiriyo sidoo kale asaga laftiisa maxkamaddu dib u fiirisa arrintiisa in maxkamaddu xorriyadiisa siiso cadaalad iraanka maxkamaddu ka codsanaya maxkamaddu ma maasanta maxaa ku baxay maxaan codsanay horta markii horeyso waxaan cadeynayaa sida baarayda sheegtay nabarada hal ma ku qoran ee sababta ku imaadan raba in cadeyn u reen nabaradaas waqti aniga aan xayeysiin jiray saacadaha oo Facebook aan ku xayeysiin jiray marka koow ay imaanay ama xasameeyay jiray qof kasto group iga soo WhatsApp iga soo qabto hal magac oo si aan u qoonsadaan ku qoran jiray dadka macaamiishiida oo waxay soo dalbadaan sidaas darteed nabarada ma daleedin way isaf gareystaan WhatsApp ka ugu jiraan maxaa xayeysiin jirtay ka bilow saacadaha yariska xayeysiin jiray macnaha fashionka qofkii macnaha saacado kale iga soo dalbado ama catar iga soo dalbado kaleeto markuu isoo qabto su'aalo kale oo biyaan si qoran jiray macnaha si macnaha hadhow aan u aqoonsado qofkan inuu kamid yahay dadka waxay soo dalbadeen waa saf gareysay WhatsApp-ka iska saf gareeyay marka magacyada noocaas oo kala qaabka saarto ku imaadeen ma gedgedii saacadaha adiga waa gedayaa meel ma leedahay macnaha ma online ku xaysiinay macnaha Facebook aan dhigi jiray markii aan barar dhigay oo warblood ka shaqeynaa dhigay wax dhaga soo gal waayeen markii waa iska dhaf Facebook ma leedahay misla maasha adiga waa isticmaalaha maxaa kugu qoran adraawi marka ma afgarasha ma adraawi waa iska jeclaa macnaha maadaama nin abwaan oo hajri magacaas waa iska jeclaa ana iska jeclaa Facebook hada misla maasha wixii waa ka dilay maadaama wixii aan iska dhaafay oo waxba anfacay keen waayeen waa isaga tagay macnaha lambarada isaf gareey jirtay marka tusaale kale qofka markuu yiraahdo u baahan oo kale WhatsApp iga soo waco macnaha waa saf gareena marka saf garee markii ilaa laabta ugu tagayso si aan ku aqoonsado macnaha magacaas si kala duwan oo saf gareeysa marna xarafka marna oo biya si qoro jir marna haay wixii markaas igu soo dhacay si qoro jir maxkamadda sharafta leh tan kale oo al-shabaab in hadda la shaqeynayadna wax ka jir ma lahan aniga al-shabaab anoo yaray wateen oo qiyaastii daadida dhameed 14 sano ama 15 sano oo waqtigii 14 ka ahayd oo macday geeyeen macadkii markaa dhameen waatan sheegay oo meesha ay mariyeen wixii dhan waa sheegay warqadan garsoore oo qoraar ay ku qoran tahay hadda yaa la joogtay hadda waxa la jooga qaraabadii la jooga familka adeeraday adeerka muxuu ka shaqeeyaa adeerkii xoolo waa baadiyo isku jira mar oo bas xamar maadaama ay maatay dadka oo dawladda ku jira inaad sheegto soo ehel waa kuleeda Soomaaliya ha laakiin markii hore waa imaanay waa jeclaa inaan sheego laakiin waxa isdhahaynay oo ma dhibaato lagu geystaa haddana dhibka la sii martaas dhahay hadda dhibaato geysinin cid ku dhibays ma lahan asdahay
shi waa isaga dhaa marka abaara joogno waa sii qancay adaawa dhibaato kale ii geysinin anna dhibaato ma geysin waa iska joogo anoo iska joogo laysoo qabtay haddana wax shaqan ku lahay malaha nimankaas waa kasoo tanaasuli ilaahay niga soo tanaasuliyey oo iga soo waday maxkamadda sharafta leh hooyada maxaa keenay tiri maya hooyada markaa la ii watay hal bil macnaha maskaxda beeshay macnaha meesha joogto iyo waxa xusameeyay isma moogeen taas way qoran tahay tan kale aniga indhaha waxa ka xanuunsan oo kale ay qornaa sidoo kale maxkamadda sharafta leh iyo gudoomiyaha iyo xeralayaha iyo dhammaan dawladdu waxaan ka codsanayaa inay xurriyadda dib ugu soo celiso maadaama qof hadda mustaqbal bilaabanayo oo hore socdo saasaan leeyahay insha Allah aragga fog ma ka maqan aragga dhawa ka macnaha aragga saas iga maqan laakiin marka meel aftiin kale ku socdo indhihii biyo ka daanaya macnaha waxa xanuunsanaya horta aabbaha maxay u dil rabtaa adiga mudana gudoomiye aabahay ma dil rabin warkaas ayaga waa leegu ban abuurtay wax ka jirana ma lahan qoriga keen ma ku dhino qoriga aabahay qoriga keen waa yiri ilow laakiin wax dil iyo dagaal midna ma dhaxmarin qorigaasna qori qabiil buu ahay inta markuu keenay leeyahay maraa cuno ahay ma bahayninba oo inaan ku tahriibaan rabay sida hore u sheegay oo inaan dibadda ku aadaan rabay aabahayna wax dagaalna ma dhaxmarin meeshii oo ku cad dagaal ka dhacayn miyaa marka maba wicinba aniga asiga wax wicitaana ma dhaxmarin qorigana waaba gatay markaas ayada la sheegay xitaa mar aniga aan qorig gatay oo tahriib aan u socdo waxa waaye shabaab xitaa shaqo aan isku lahayn waaye wax shaqo isku malihin shabaab xitaa markaas kuma beerin kamana mid yihiin islaanta xog lagaaga furmaya dagaalka daata sheegaysay waxaan maxaa waay maya cid islaa iga furto male islaamkayga anoo qabaa la iga xiray saddex xaas baan qabay wax uu aabay iga furay ma jirin xaaskayga saddexdaba anoo qaba ayaa la iga xiray dagaalka sheegaysay oo gala dhigay daata dagaalka waa dagaal qabiil dad ehelna oo dirisnaha ayaa isdagaalnay aabahay isma dagaalin xaaskayga isma dagaalin waxaas waa been abuurasho xaas ku dagaashay diris ayaa ahaynay beerna waa isku dagaalnay xoolna waa isku dagaalnay kabacdi ficil qabiil iyo wax baan dhex maray dad iga waaweynayna ahaayeen saas baa isku dagaalnay ilaa heer marka waxa la gaaray in oo lay gumaado oo maaragtay awood lay sheegto anina de inaan iska dhiciya go'aan ku qaatay markii de inaan iska dhiciya aan rabayne qabiilkii baa aabahay qabsaday waxa la yiri ninkaas adiga baa dhalay duurku galay naga qabo aabahay baa isoo wacay laba farood buu ii taagay wuxuu yiri far ducay far habaar baa ku taagay nimankaas inaa ka hartaa raba oo hadda aad la dagaalsan tahay anay ii soo dacwoodeen markaas ayada aabahay oo saas ileeyahane xagga maamulka dawladana waa ka dacwoodeen oo macnaha anay markaas duurka ku jiray xagga shabaabna way ka dacwoodeen labadaba waxba waa leeyahay qabo waay kabacdi aabahay bay u tageen aabahay baa isoo wacay amar buu isii nimankaas ayaga faraha ka qaad buu yiri amarkiisaan ku daay anay aabahay isma dagaalsaneen de amarkiisaan qaatay nimankii sidii baa ku daay sidii baa ugu tanasulay maxaa maxkamadda ka codsanay waxaan u baahanahay maxkamadda sharafta leh waxa ka codsanayaa inay xurnimadeeda ay siiso cabdi fataax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho